ardayda wax ka baratay iskuulka Sigma ee ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay u diyaar garoobayaan gelitaanka imtixaanka ay qaadayso dawladda Soomaaliya oo xilligiisa ay sheegtay in ay dawladda ka soo hormarisay taa oo la qorsheynayo in 24 Abriil guud ahaan ardayda dugsiyada sare iyo sidoo kale fasalka 8aad ay u fariistaan imtixaankan ugu horeyn waxa ka hadlay ardayda wax ka baratay iskuulka Sigma ee magaalada Beledweyne haddii aan ka hadlo fikirkeyga ama ka hadlo waxaan ahay ardayda fanfoorada ah ee sanadkan 2019-2020 ka baxaysa iskuulkan waa iskuulka Sigma Primary and Secondary School waxaana ka ahay fanfoorada ka ahay wallaahi waa su'aal muhiim ah haddii aan kaga faa'iideysto su'aasha aad weydiiseen haddii aan kaga faa'iideysto imtixaankaas waa imtixaan wanaagsan sababtoo ah waxa laga qaadayaa dalka oo dhan guud ahaan Soomaaliya oo dhan ma laga qaadayaa waana imtixaan insha Allah taala waan isku diyaarinay in la qaado goor kasta la qaado ama waqti dhow ha la qaado ama waqti fog ha la qaado mar oo waliba diyaaraan nahay waan isku diyaarinay imtixaankaas si aan ku gali lahayn insha Allah taala kulli guusha wax kastaba waxay ku xiran yihiin Ilaahay subhanahu qaadir ay ku xiran yihiin laakiin Ilaahay wuxuu ku leeyahay dadaal aan ku garab istaagaya waxaan rajaynaynaa haddii aan nahay ardayda Soomaaliyeed qaasatan ardayda gobolkan Hiiraan qaasatan ardayda degmada Beledweyne inaan guul taariikhi ka soo hoy doono waliba toobtaynka insha Allah taala aan ku xisaabtami doono awlan assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh marka hore Allah subhanahu wa taala ayaa mahad iskale magacayga hadii aan ku bilaabo waa Salaad Cusmaan Muumin inoo suurta galiye maanta inaan soo gaarno halkaan qaasatan aniga waxaan kamid ahay ardayda galaas ka form 4 baxaya sanadan waxaan dhigtaa iskuulka Sigma Primary and Secondary School marka hore mahad balaaran waxaan u celinayaa Allah subhanahu wa taala mid xigta waxaan u mahad celinayaa dhammaan waalidiinta naga soo qayb gashay ama naga soo qayb qaadatay juhdi badan oo soo galiyay soo gaarsiisay heerkan aan maanta aan ku sugannahay run ahaantii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo sanadan 2020 imtixaanka dawliga ee shahaadiga inaan ka qayb galo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay si wanaagsan ayaan ugu diyaar garoonay waxaan rajaynayaa inuu si wanaagsan inoogu soo gabagaboobo biidnillaahi kariim Ustaad Cabdifataax Maxamed Cusmaan Waariye Nuux Garaad iyo Maxamed Xasan Maxamed waxay ka mid yihiin macallimiinta wax ka dhigay iskuulka Sigma ee magaalada Beledweyne dhankoodu waxay ka hadleen sida ardaydu ay ugu diyaar garoobayaan magacaygu waa Cabdifataax Maxamed Cusmaan kan mid ah macallimiinta gobolka Hiiraan qaasatan degmada Beledweyne waxaan ka tirsanahay macallin ka mid ayaan ahay maxadka Sigma Primary and Secondary School wasaaradda waxay cilaamisay waqtiyadii imtixaanka qaadi jirtay inay ka soo hormariso 24 bisha Abriil inay imtixaanka qaadi doonto ka Sigma ahaan anaga ardadeena imtixaankii iyo wixii diyaar u yihiin waa u diyaar galowna ma sha Allah ardayda moralkooda aad u fiican yahay ardayda iskuulka Sigma horna waa u diyaarsanayeen haddana waa diyaarsan yihiin si aad inay ugu diyaar garoobeen imtixaanka dawladda ee shahaadiga ah ee kala dhaxeeya Soomaali weyn haddaan ii sheeg fanfoorka iskuulka Sigma idiga warbixiyo fanfoorka iskuulka Sigma heerkii xaddiga ee waxbarashada dugsiga sare ama fanfoorka loogu talagalay way soo afjareen wayna soo afjari doonaan haddana waxay sugaan waa imtixaanka isku diyaariyaan oo kale ka hadlana dhanka iskuulka ardayda imtixaanka si fiican ugu diyaar galayna ma sha Allah waxaan rajaynaynaa ardaydeena ee iskuulka macadka Sigma dhigato inay guul weyn ay ka soo hooyinayeen ayaa rajaynaynaa insha Allah ilaahay ma sha Allah ardayda naftigooda hadii aan ka hadlayo naftigooda dadaal badan ay sameynayaan waayo macalinka had iyo jeer wuxuu u taagan yahay si ardaygiisa uu ku horumarsiyo ardayda ayaga naftigooda dadaal way sameynayaan waayo ardayda waxa ku filan waysay shantii maalin ee daraasada la qaadanaya hatta khamiis jimco way imaadaan si daraasadooda ay u sii qaataan waa ardayada u diyaar garoobay imtixaanka wasaaradda waxbarashada u diyaar garoobay حتى شنتي مالين يكون في اللان ويس خميس الجمعة يكون درسنا حتى ما شاء الله. ضبين وحاد الكسو حري معمولو كحجين كسكول كسجمة مقالة بلدوين علمي حانشي دلين. عدنا هاي معهد سكول كسجمة برايمري أند سكندري سكول runtii imtixaanaadka dawladda xilligooda laga soo hormariyay waxaan ku naqaanay sanadii hore waxa la gali jiray May gabagabada la gali jiray laakiin sanad dugsiyeedkan waxa laga soo hormariyay xilligiisii
oo waxaa la geli doonaa sidaan rajaynayno insha Allah oo la soo iclaamiyay wasaaradda bisha Abriil nagu soo aadan aakhirkeeda hadduu Ilaahay yiraahdo runtii barnaamijkaas oo ah waqtiga in laga soo hormariyay wuxuu culays badan ku keenayaa xagga waxbarashada ardada. Cabdiwaaxid Maxamed Aadan, wararka telefishinka dalka TV magaalada Beledweyne.